dhalinyarta kasoo qayb gashay iyo rag kaloo mas-uuliyiin hore soo maray uu kamid yahay ekas xildhibaan dhuxul oo meesha qalabka u jeeda runtii iyo akhyaarta dhammaantiin waa idin salaamayaa sidoo kale fortuna salaama oo shabeellaha dhexe ururka dhalinyarada gudoomiye iyo dhammaan marti sharafta kale waxaan aad ugu faraxsanahay inaan galabta kasoo qayb gala madasha hiil anoo ah muxuu ahay mas-uulkii labaad reer hirshabeelle una dhashay muxuu ahay gobolka hiiraan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan su-aal iga weydiisiin ku aadan muxuu ahay waxa adinka aad rabtiin waxaan diyaar wahay su-aal kasta inaad i weydiisiin ayaan diyaar wahay runtii inaan ka jawaabana diyaaran wahay wixii karaankeyda markaasi in mas-uuliyiinta lala xisaabtamo oo muxuu ahay xilka ay hayaan lagu xisaabtamana aad ay muhiim u tahay maxaa yeelay annagu waxaan ka shaqeynaa 3 shay haddii nahay baarlamaanka kow marka koowaad waa matalaada shacabka waxay ku hadlaan baarlamaanka shacabka afkiisa ay ku hadlaan marka shacabkooda inuu la xisaabtamo aad ay muhiim u tahay waxaan diyaar wahay su-aal kasta u weydiisiin inaan ka jawaabo aad waa mahadsantihiin kasoo qaybgalka iyo yeeritaanka aad ii yeerteen waad ku mahadsantihiin waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb gala madasha hiil uu marti ku yahay guddoomiyaha baarlamaanka hiirshabeelle ma badinayo waqtiga kooban awgii waan sii gudagelayaa su-aasheeda goobaad waxay tahay mudana guddoomiye ma jira sharci soo ifbaxay ama sharci aad dejiseen intii ahaysay jagada guddoomiyenimada hiirshabeelle guddoomiyaha baarlamaanka hiirshabeelle su-aasheeda labaad waxa ay tahay mudan guddoomiye wax ku sugan tahay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan intii aad joogtay ma jira mashruuc aad daah furtay ama aad xariga ka jartay maadaama aad tahay mas-uul sare ee soo booqday gobolka hiiraan mahadsantahay marka hore waan ku salaamaa sida ragnimada leh aada usoo hor istaagtay bulshadaada intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madasha hiil magacayga waa qadar ibraahim shariif waxaan ka mid ahaa dhalinyarada beledweyne ku sugan mudana guddoomiye waxaan rabaa inaan 2 su-aalood ku weydiiyo waxaa tahay guddoomiyihii baarlamaanka hiirshabeelle waxaa sidoo kale soo noqotay guddoomiyihii degmada beledweyne iyo guddoomiyihii maxkamadda waxaa tahay nin runtii siyaasad wax badan ku yaqaano mudana guddoomiye isbuucadii lasoo dhaafay baarlamaanka hiirshabeelle waxaa hareeriyey khilaafka ku aadan xiritaanka baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka qaar ka tirsan ay kugu eedeeyeen adigoo dalka dibadiisa joogo weliba magaalada jidda marka aad inaad baarlamaankii nasiib ka hertay labadii guddoomiye ku-xigeen ee kaa hoosay hirag ka jiraad ayay qabteen in baarlamaanka furiya ayay caddeeyeen taasi waxaan rabaa inaad naga jaahil bixiso haddii aan nahnay bulshada reer hiirshabeelle su-aasha labaad aan rabo inaan ku weydiiyo mudane guddoomiye waxay tahay waxaa jiro xildhibaano gaaraya ilaa 18 xildhibaan oo haween ah oo jandar ah oo loo qorsheeyay in hiirshabeelle lagu daro xildhibaanada sida wararka aan ku hayno ay sheegeen inaad adiga hor istaagtay maadaama aad ka weysay sida ay xaqiijinayaan beeshaada marka waxaad rabnaa inaad taasi noo cadeyso intaa kadib waxaan rabnaa inaad su-aal kale ku darsado oo ah maxaad sharci oo baarlamaanka u ansixiyey ama hindiin sharciyeed ama sharciyada baarlamaanka loo igmaday aada u mahadsan mudane guddoomiye magacaygu waa cigaal cabdulle cilmi kana mid ah dhalinyarada gobolka hiiraan waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo mudan guddoomiye guddoonka baarlamaanka amaba baarlamaanka dowlad goboleedka hiirshabeelle wuxuu leeyahay xafiis xafiiskana waxaa ku baxa budget sidoo kale waxay leeyihiin gunooyin amaba dad loogu talagalay inay ka shaqeeyaan xafiiskaas ma jiraan dhalinyaro inay ka shaqeysa xafiiska guddoonka baarlamaanka ama xafiiska dowlad goboleedka hiirshabeelle ee qaybta baarlamaanka waxaan rabaa su-aashaas inaan ku adkeysto waa mahadsan tahay dhammaan waa mahadsantihiin asalaamu calaykum dhammaantiin waa mahadsantihiin su-aalaadkaasna dhammaantood waxay badihiin su-aalaad wanaagsan oo dastuuri ah haddaan ka jawaabo su-aasha koowaad ee dastuurka ku qoran oo ah yacni maqaamka caasimadda dowlad goboleedka hiirshabeelle waa sax maqaamka caasimadda hindi sharciyeedkeeda ama qaabka ay yeelanayso runtii process ayuu ku jiraa meel fiican ayuu marayaa kaas waxaan isleeyahay goor dhow kalfadhiga horteena ah inuu soo gabagaboobi doono ayaan rajeynaa sharcigaas hadda aan la meel marin ama aan noo sameynin muxuu ahaay maqaamkaas gaarka caasimaddana runtii ma umalaynayo inay wax badan oo kale qabsoomi doona ama golo deegaan ha noqoto ama wax kale ha noqoto
ismarihii waa laga dhaqangelin doonaa, laakiin waxaa ka horeeya maqaamka caasimadda ay yeelanaysa iyo habqaybsigeeda iyo nidaamkeeda ayaa ka horeeya. kaas halkaas ayaan rabaa inagu jawaabo. qodobka su-aasha uu i weydiiyey muxuu ahay axmed mukhtaar soo ma axmed mukhtaar su-aasha uu i weydiiyey waxay ahayd sharci dejinta. waa sax, baarlamaanka waa sharci dejiye, waa qodobkiisa muxuu ahay wuxuu kamid yahay asaasiga uu kamid yahay. runtii Hirshabeelle wax badan ayaa u qabsoomay xagga shuruucda ah. qaraaraad badan oo baarlamaanka uu dejiyey ayaa jira oo aan soo koobi karin oo gaaraya ilaa 20 iyo dhowr gaaraya ayaa jira oo ay muxuu ahay baarlamaanka dejiyeen xukuumadda yacni lagula xisaabtamaya ama wax lagu diidaya ama maxay ahayd wax lagu horumarinaya ayaa jira. hadda community aad ay badan waa jiraan, taasaan ku leeyahay. tanka xiga oo mashruuca ah, aniga waxaan imid dhowr iyo 10 maalin ka hor caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. mashaariic badan ayaa jirta oo laga daahfuray oo runtii aan la soo koobi karin. ay kamid tahay xaruntii baarlamaanka loo dhisayay, waxaa kamid madaxtooyada, waxaa kamid xafiisyada macnaha wasiirada ama maaliyadda, waxaa kamid garsoorka. in badan ayaa runtii laga daahfuray aan la soo koobi karin caasimaddaas. runtii beledweyne waxaan isleeyahay waa caasimaddii labaad ee ganacsiga. ayadana mar dhow mashaariic badan ayaa la dhexdhigi doonaa insha allah, markaas ayaa la daafuri doonaa. iyagana saas ayaan isleeyahay waa socotaa taas ayadana. laakiin hadda mashruuc oo aniga aan la soo kulmay ama dhismo ama kale ma jirin oo hadda la daafurayo. halkaas ayaan rabaa inaan su-aashii kusoo koobo axmed mukhtaar. qadar ibraahim wuxuu u weydiiyey xiritaanka baarlamaanka. waa sax, horta baarlamaan haddaa aragtaan isku ra'yi ma aha. inay kala fikri duwanaadaan oo dadka ay muxuu ahay fikirkooda kala duwanaado oo yacni cod aqlabiyadda kadib marka dambe lagu kala baxa ayaa baarlamaanka sharcigiisa u yahay. baarlamaan waa meel yacni ma aha ay dadka 100% isku raacaan. waa dadka maadaama shacabka si aragtiisa kula duwan tahay ee baarlamaankana kula duwan tahay. baarlamaankaasna anigu ma joogin hadda Sacuudi Carabiya ma joogin, dalka ayaan ku sugnaa. dastuurku wuxuu qorayaa baarlamaanka markii la xirayo 4 bilood ayuu baarlamaanka shaqeeyaa, ama shaqo ha qabta ama yuu qaban, laakiin furitaanka xilligiisa shaqada waa 4 bilood. 2 bilood baarlamaanka wuxuu gelayaa fasax. dastuurkii markii xeerka kuma qoro dastuurkii xeerka gudoomiyaha soo maqan ama soo jooga ama soo muxuu ahay xarunta ku sugan ayuu baarlamaanka xiriyaa ama furaa muxuu ahay ma kuma taal. baarlamaanka 4 bilood markay u dhamaato oo baarlamaanka la xiro, furitaankiisu waxaa fura madaxweynaha, laakiin xiritaankiisu waa dastuuri. cidda macnaha sida gaarka iyo qaabka loo xirayo dastuurka kuma casuuntay. saa darteed marka habsami socodka baarlamaanka mas-uuliyiintiisa iyo muxuu ahay qaabka loo jadwalaynayo intaasoo dhan waxay kamid tahay mas-uuliyaddayda. haddana in badan khilaafkaas insha allah waa iska dhamaaday. baarlamaankan hadda wuxuu ku jiraa habkiisii wanaagsanaayo ku jiraa. khilaafkiina hadda 90% wuu xalismay, arrinkaas wuu dhamaaday. waxaan rabaa tan labaad ee ah maxay ahayd haweenka oo i weydiiyey muxuu ahay qadar ibraahim. dadka runtii haddaysan xoogaal lahayn waxaa laga yaabaa inay si kale u fasirtaan. horta haweenka anigu ma diidin, laakiin qaabka loo keenay ayaa waxay ahayd marka hore qaab aan habqaybsigii beelaha ku imaan. beelaha waxay qaybsadeen oo la qaybiyey 99 xildhibaan oo guddoonka ku jiro. ogaasyada iyo duubabka iyo dhammaan beelaha si rasmi u qaybsadeen. intaa kadib ayaa muxuu ahay igaad iyo wasaaraddii arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo ururkii haweenka qaranka ayaa waxay keeneen kootadii haweenka ayaa maqan. dib ayaa markii anigu baarlamaanka ama mas-uuliyaddiisa la wareegay kadib ayaa dib liis lagu keenay oo leeyahay intaanu haween ayaa lagu dariyaa. dastuurkiina lagu qoray, laakiin marka hore ergadii Soomaaliya meesha isku tagtay iyo dhaqankii iyo beelaha waxay qaybseen kamid ma ah. dib aa loogu daray. dastuurkeena hadda hor yaalla waxaa ku qoran xildhibaanada waa 117 ku qoran. waxay marka dhibaato ka timid dadkii maadaama aan hab beeleed marka hore aan lagu keenin oo habkaa lagu keenay, habqaybsiga ayaa la isku qabsaday. cid kasta oo kamid ah Hirshabeelle waxay u sheegeen hadda igaad xafiiskeedii markaas meesha joogay iyo wasaaradda arrimaha gudaha
inay leeyihiin muxuu ahay in gabar la siinayo cid kasta in gabar la siinayo ay u sheegeen khilaaf fara badan ayaa ka yimid waad ogtihiin 9 bilood ayaa Hirshabelle dhisay hab loo qaybsado baarlamaankaas ayaa runtii dhibaato badan laga maray dhowr jeer aan isku daynay in arrintaas aan meel marino isku qabsi fara badan iyo khilaafaad aan soo xallin karin ayaa runtii ka yimid aniguna ma hor istaagin haddana waxaan ku balansanahay 2020 ka hor in arrintaas la meel mariyo idan waa socotaa qaabkii yacni loo xuli lahaa iyo qaabkii waxaa la isku hayaa ma 17 gabdhood yacni qaabkii loo qaybin lahaa ma haweenka keensanaha loo daynaa ma madaxda Hirshabelle la qaybinayso ma ugaasadii lagu celinaa qaabka ay tahay dhammaan runtii process socdo waay laakiin waxaan idin ballan qaadaa 2020 ka hor in arrintaa dhammaanayso halkaas rabaa inaan ugu baxo su-aasha kale saddexaad waxay ahayd muxuu ansixiyey baarlamaanka wuxuu ansixiyey wax badan wuxuu ansixiyey hindis sharciyaadka wasaaradda maaliyadda oo 2018 ayuu ansixiyey 2019 bilowgeedana mar labaad ayaa sanadkii markuu u dhamaaday uu ansixiyey wuxuu ansixiyey sharciga golaha deegaanka ee dowladaha hoose ee halkaa laga daafuray arkayseen baarlamaanka ayaa ansixiyey baarlamaanka waxaa kaloo ansixiyey muxuu ahaay shaqada iyo shaqaalaha wuxuu ansixiyey baarlamaanka sharciga hanti dhowrka guud iyo hanti dhowrka labada intaas ayuu ansixiyey wuxuu ansixiyey baarlamaanka oo kale oo shuruuca dhismihii golaha wasiirada oo madaxweynaha soo magacaabay 2 jeer laba jeer soo magacaabay madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hadda joogo waxyaabaha uu ansixiyay kamid tahay waxaa kale qaraaraad kale oo baarlamaani oo badan ayuu baarlamaanka ansixiyay waa jirta oo la meel mariyay ciidana intaas ayaa ciidan hadda inta badan ka xasuustaa halkaas ayaa su-aashii qadar Ibraahim ahayd cigaal wuxuu ii weydiiyey baarlamaanka shaqaalihiisa uu ii weydiiyey baarlamaanka sax shaqaale uu leeyahay xafiiskiisa waxaa ka shaqeeya shaqaale badan oo ilaa dadka hadda si rasmi u shaqaaleysa waa 10 xubnood oo ku jira xoghayaha guud ee baarlamaanka iyo agaasimayaal kale iyo shaqaale kale hoos u baarlamaanka leeyahay runtii oo si rasmi ah shaqaale uga ah waxaad ogtiin Hirshabelle waqtigeeda wuu koobnaay waa 2 sano wax yar ayay joogtaa waxayna ku soo aaday xilli kala guur oo yacni dowladdii Soomaaliya iyo waqtigeeda u dhamaaday runtii marka waxyaabo badan ayaanan u qabsoomi karin laakiin waxaan isleeyahay inta aad jirteen in badan ayaa adiin qabsoontay isle waa mahadsantihiin aad u mahadsanyahay gudoomiyaha waxaan rabaa lixle in la siiyo lagu bilaabo bacdo waxaan ka bilaabay dhalinyarada gobolkiyaan qaasad degmada beledweyne waan salaamayaa gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle mudane Sheekh Cismaan Barre Maxamed waxaan kaloo u mahad celinayaa madasha hiil oo lahaantii kaalin aad iyo aad loogu baahnaa buuxisay waxaan rabaa su-aalahayga laba inaan kusoo koobo su-aasha koowaad waxaa waaye dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa ku qoran dowlad goboleedka Hirshabelle inay leedahay xuduudo oo xuduudaheedana ay yihiin inay leedahay xuduudo isla markaana maxaan ku sheegay dowladdii kacaankii ka hor 1991 xuduudihii inay yihiin xuduudaha dowlad goboleedka Hirshabelle sida dastuurkeeda ku cad waxaa jira degmo la yiraahdo degmada Matabaan gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle degmadaas waxaa ka taliyo maamul la yiraahdo Galmudug oo aan dirisnahay maxaa sababay in degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ay ka taliyaan maamulka dowlad goboleedka Galmudug oo gudoomiye dowlad goboleedka Galmudug ay soo magacaado uu joogo oo maamulka Hirshabelle aysan ka shaqeysan maxaa sidii ka qorsheysan degmadaas su-aasheeda labaad waxay tahay dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle qodobka 34 wuxuu cadeynayaa awoodda golaha sharci dejinta isla qodobkaas xarabkiisa ga awoodda sharci dejinta waxaa ka mid ah ka doodista iyo ansixinta maaliyadda sanadka iyo meelmarinta xisaab sanadeedka ma jira labadii sano la soo dhaafay xisaab xir ah sameyseen iyo la xisaabtan la xisaabteen wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabelle maadaama wasaaraddaas ay ka mid tahay wasaaradda sida sax xooga u shaqeeyo oo dowlad goboleedka Hirshabelle maaliyadda labada gobolna ay midaysan tahay magacaygu waa Maxamed Yuusuf Cismaan dhamaan waan salaamayaa marti sharafka sidoo kale waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha baarlamaanka oo runtii fursad qaali ah na siiyay maanta maadaama uu yimid madasha hiil sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada isku xilqaantay inay hal abuur u sameeyaan dadkan sababtoo ah ma arki jirin fursadna uma heli jirin mas-uul yimaado gobolkan
waxay noqon jirtay inaan process u marno haddana runtii asaan hor fadhiyo waa arrin farxad leh oo gobolka lagu soo kordhiyay waan u mahad celinaya dhalinyarada waxaan qabaa 3 su'aal aan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle runtii su'aasheeda koowaad aan rabo inaan weydiiyo waxay noqonaysaa qodobkiisa afraad dastuurka noqonaysaa cutubka koowaad farqadiisa labaad wuxuu sheegayaa haddii loo arko labada gobol ee Hirshabelle ay ka kooban tahay Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe in lagu soo kordhiyo degmooyinka haddii loo arko in lagu soo kordhiyo gobol haddii loo arko in lagu soo kordhiyo in lagu soo kordhin karo waa inay ku caddahay dastuurka runtii waxaa jirtay xukuumaddii ka horeysay waxay dhistay degmooyin oo gobolka Hiiraan inta badan loo magacaabay waxaan filaynay in la asixiyo degmooyinkaas runtii aadaan ugu faraxsaneen ma dhicin gudoomiyihii madaxweynihii ugu sareeyay meesha laga saaray madaxweyne cusub ayaa yimid baarlamaanka kow waxaan kaga fadhinay maadaama annaga ina matalaan kow shaqada koowaad ay qabanayaan inay noqoto ansixinta guddi baarlamaan oo waxaa jira wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsan marka waxaa la rabay maadaama xataa wasiirkii waa jooga hadda aduu bixi lahaa xataa in wasaaradda dadkii guddiga ahaa inay barnaamijka hor keenaan meesha laga sii wado ma noqon sababtaada laga rabaa gudoomiye tan labaad waxaa waaye barnaamij ku saabsan waa maaliyadda runtii labadan gobol ee Hirshabelle isku yiraahdo waa laba gobol oo qani ah sidaan ognahay waxaa ka soo xaroota canshuur aad u fara badan baarlamaanka Hirshabelle runtii lacagaha la siiyo Hirshabelle lagama siiyo ognahay waxaa laga keenaa dowladda federaalka qoondada oo loogu talagalay dowlad goboleedyada ayaa laga siiyaa waxaa jirto wasiiro la magacaabay iyo agaasimayaal iyo shaqaalo ma jiraan wax gonnaa ay qaataan lacagaha ugu badan gobolka Hiiraan laga qaadaa xagee ku baxaan yaa maaray horta marka hore kow taasaan rabnaa xageesu ku baxaan maxayse tahay sababta hortaagan wasiirada iyo dadka xuquuqda ku leh Hirshabelle in budget la siiyo ama loo daadijiyo taas waa mideeda labaad mideeda saddexaad aan rabaa inaan u gudo galaayadana mideeda saddexaad waxaa waaye inta badan gobolka Hiiraan haddii aan nahay dadka ku dhaqan waxaan ka qaylinaa wareegtadan lasku soo xooro markasta dhay 3 bilood kadib wareegtaa socoto oo meel ay ka socoto aan aqoon runtii in badan aan isdhex marnay haddii aan u saarin lahayn gudoomiyaasha oo aan dhihi lahayn gudoomiyaasha qaldamo oo xaqay u leeyihiin inay bedelaan gudoomiyihii haddana laga bedelo kan hadda lagu soo bedelay asaa bedelaa waa wax lala yaabo marka caqliyan waa la yaabna annaga haddii aan gudoomiyaha eedeyn lahayn wax qabadkiisa aan eedeyn lahayn isla kan hadda bedelay asaa bedelaa sababtaasna gudoomiyaha baarlamaanka ka rabnaa maadaama xukuumaddu waxaas ay sameynayso sharci dejinta asaa anagana matalo waxa aan aragnay sababta u arki waayeen ayagaan ka rabnaa marka intaas qabo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta degmooyinka oo ku saabsanayd arrimaha degmooyinka annaga waxaan aaminsanahay ilaa hadda dowladdii Soomaaliya degmooyinkii ay sharciyeysay inay muxuu ahay 92 baarlamaanka qarankana uu ansixiyay wixii 90kii ka dambeeyay ka horeeyay ayaa degmooyin runtii oo dowladdii Soomaaliya ay aqoonsan tahay kadibna maamul goboleedyada way sameysteen degmooyin anaga naga horeeyay degmooyin iyo gobollo ay sameysteen waa jirtay annaga hadda marka ma ogsoonin degmooyin cusub oo ay Hirshabelle weli soo kordhisay ama gobollo ma jiraan degmooyinkii hore iyo oo 90 wixii ka horeeyay ayaa on Hirshabelle hadda degmo ah wixii ka dambeeyay hadda waxay u baahan tahay in baarlamaanka Hirshabelle la hor keeno baarlamaanka uu ansixiyo guddi la diro yani runtii anaga waxaan ansixinay sharciga dowladaha hoose kalfadhigan kii ka horeeyay ayaan ansixinay waxaa ku qoran in degmooyinkii hore ay degmooyin yihiin dowladda Soomaaliya degmooyin cusubna iyo gobollo la sameyn doono degmooyinkaas marka waxay isku jiraan 40 kilomitir ayaa anu aan ansixinay dowladaha hoose marka anaga hadda degmooyin cusub oo baarlamaanka Hirshabelle la hor keenay ama gobollo la hor keenay uu ansixin ma jirto waxaan rabaa Canab Cumar Cadow degmada Matabaan waa sax waxaa ku qoran dastuurkeen in xuduudihiisa yani galmudug aan dhinac kala leenahay ayaa ku qoran degmada Matabaan waxay kamid tahay Hirshabelle ama degmooyinka gobolka Hiiraan ay kamid tahay waad ogtihiin dalka inuu markii dowladda Soomaaliya ay burburtay in dalka hayb intuu iska noqdo uu iska qaybsamay
markii maamulkii la magacaabi jiray gobolka hiiraan markasta waxaa la magacaabi jiray degmada matabaan maamula loo magacaabi jiray ogtihiin oo gacanta muxuu ahaa hiiraan marna kamay bixin anigii iyo madaxweynaha mar ay xamar isugu nimid nimanka la yidhaha ahlu sunna waljamaaca oo in badan la yidhaahdo waxay gacanta ku hayaan degmada matabaan waan kala hadalnay waxay nagu yidhahdaan degmada matabaan annaga ammaankeedun baan sugayni laakiin waxay kamid tahay gobolka hiiraan xoogna kuma haysano maamulna kuma haysane dowladda hirshabeelle cidda ay rabtaan u magacaabata iidaha maamusha marka waxaan leeyahay degmada matabaan xildhibaano ay kuleeyihin hirshabeelle oo runtii kasoo jeeda waxay kamid tahay gobolka hiiraan cid gaar ahoo maamulkeeda naga hortaagan ma jirto waana hirshabeelle ay kamid tahay qodobka muxuu ahaay maaliyadda ama xisaab xirka waa runtaa sax waxaan la xisaabtanay kalfadhigii lasoo dhaafay ilaa 18 wasiir oo kamid yahay wasiirka maaliyadda intaas waxaa su-aalaad laga weydiinayay dakhliga hirshabeelle soo gala iyo meesha uu ku baxa iyo qaabka loo tasarufa intaas ayaa laga hadlaya runtii kalfadhi dham ayaa lagu soo qaatay muxuu ahaa arrinkaas wixii kasoo baxay runtii baarlamaanka ayaa muxuu ahay qaraaraad iyo go-aana kasoo saaray labadaas su-aalood ay i weydiisay muxuu ahay canab qaabka maaliyadda loo maamulaayo ama qaabka loo soo saarayona يعني شرعية أنا يعني سحني أو أن سأن يعني وزير كقول حسابته أفرتني شن مع الموضة وزير سؤالات اللي ويدي أيوة شرعي أصلي يعني أحمد يوسف ويدي قبل هذا يدقمون كاس أشياء كمان هاد دستور كل شيء الحرية يعني اللي سوكر يدقمون عصب يقبل عصب وصح مدعويني هراء وهم عاب دقمون مركا نسيت النام كويا وحيت هاي madaxweynaha hadduu degmooyin inta u magacaabo inuu golaha wasiirada marka hore inta la keeno golaha wasiirada muxuu ahaa ka sameeyaan muxuu ahaa dood ka sameeyaan madaxweynaha kadibna ugu soo gudbiya muxuu ahaa idoo qoraal ah golaha baarlamaanka in la keeno madaxweynaha uu magacaabay runtii anaga magacaabay baan maqalnay hataa inta nala soo gudbiyay gudoomiyaha loo soo gudbiyay ama guddiga joogtada qoraalka la hor keenay baarlamaanka in la geeyay muxuu ahaa nalama soo gudbinin halkaas ayuu joogta ayaa waxaa bilowday khilaaf ka bilowday degmooyinkaas inta badan khilaafkii muddo socday waatii madaxweynihii yani meeshu ka baxay madaxweyne cusub ayaa yimid madaxweyne cusub welina asaga degmooyin iyo gobolladii wixii yani madaxweyne hore uu magacaabay ama yani wax cusub dee nooma soo gudbinin annaguna waxaan ansixinaa wixii shuruuc yani golaha fulinta keenan ayaan ansixinaa runtii marka taas halkaas ayaan leba ka sugaynaa laakiin dastuurkeenu ay ku qoran tahay in degmooyin iyo gobol cusub la keeno وانا مال دونا ان شاء الله تعالى لكن انا انتان تقنون انا دقموين اي قبل انا كان شرعي دجنت ما انصحنا شغاس وحا اسكله فلنتا اسكله waxaa soo haray maaliyadda iyo muxuu ahay uu ka hadlay taas hore ayaan uga hadlay laakiin haddaan taabto waa sax dowladda soomaaliya wayna caawisaa lacag kooban ay nagu caawiyaan oo aan badneen maamul goboleedyada kale ayaan taas wala simanahay waxaad ogtihiin hadda hirshabeelle hay-adaheeda dhisan inay wax yaroo hadda dowladda soomaaliya ay ku caawiso inaysan ku filnayn waad ogtihiin xukuumad yani dowlad dhan kuma filna waxaas hadda oo dowladda ay yani ku caawisa golaheeda baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo dhammaan kaabayaasha iyo amniga laga shaqaynayo dhan runtii waxaad ogtihiin inaysan wax ku filnahayn marka cid kastana xuquuqda ay leedahay markaas ku aadan oo ama baarlamaanka gudooyinkiisa waa la siiyaa wasiirada waa la siiyaa agaasimiyaalku meel gaar ama shaqaalaha kale waa la siiyaa wixii karaankooda runtii dakhligeena maanta meesha joogan way ogtihiin dalkeena hirshabeelle ama statekeena inay isku fureen oo ay nabadiidka meelo badan ka joogaan waad ogtihiin runtii taas marka ma qarsoon waxaan isleeyahay wixii ana karaankeena ah oo ku saabsan muxuu ahaay arrimahaasi gunooyinka ama mushaaraadka ah iyadana wuxuu ahay waa la bixiyaa waxaa ku soo haray magacaabista maxay ahayd gubernatoriyaasha ama maamulka runtii waxaan isleeyahay su-aashaas waxaa iskale in badan xukuumadda ayaa iskale ama madaxweynaha ayaa iskale laakiin si kooban haddaan ugu jawaabo annaga waxaan leenahay la xisaabtanka xukuumadda qofkii xilgudashalaan ay ku timaado xilka in laga qaado meeshii dhibaato ka dhacday xukuumadda inay wax ka qabato inaan miisaaniyadda kula xisaabtano inaan yani arrimaha bulshada kula xisaabtano intaas ayaan ugu xaq u leenahay aadan hortadii salaamaya intaas kabacdi guddoomiyaha waxaan su-aalah
maadaama guddoomiyihii ugu sarreeya uu yahay magaaladii Buuliburto Mukhtaar Axmed Ibraahim Abdul Mukhtaar Axmed Ibraahim maadaama guddoomiyihii asiga ugu sarreeya asiga uu yahay caasimadii maadaama Jowhar lagu wareejiyey magaalada Buuliburto maxaa gobol u diiday asaas su'aalina horta taas baa kan inoo sheego midda labaad qoondada ka dhiman baarlamaanka gabdhaha ma reer hiira ma labada shabeelle dhex taallaa ma dad qaata iska leh inuu noo sheego waa ka rabnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Cismaan Barre waa soo dhaweynaynaa waxaan rabaa su'aalahayga haddii aan guda galo qodobka 61aad faqradiisa afaraad waxay qoraysaa guddiyo madax bannaan guddiyaas madax bannaan waxaa ka mid ah mudane guddoomiye waa ilaa iyo guddiyo gaaraya A ilaa iyo G waa 7 guddi guddiga ugu horeeya oo faqradda afraad ay ka bilaabanayso waa guddiga adeega garsoorka dhibaatooyin fara badan ayaa waxay ka jiraan mudane guddoomiye sidaad ka warqabtaba dhinaca garsoorka gunooyinkiisii iyo maaragtay shaqooyinkiisii iyo horumarintiisii adigana waxaa tahay guddoomiyihii baarlamaanka waxaa tahay sharci ilaali baarlamaanku waa sharci ilaaliyihii adigana waa qofkii xubintii ugu sarreysay bulshadii labada gobol gaar ahaan gobolkan hadda aan ku noolnahay gobolka Hiiraan waxaa aad dhibaato badan ay ka haysaa xagga garsoorka mana seeganid inaad ka warqabtaan waa filan waqtiyada ka mid ah baarlamaanku waxay soo saareen in ay kala direen baarlamaankii Hirshabeelle waxaa dib loo dhisay kii Shabeellaha Dhexe garsoorkii gobolka Hiiraan weli caqabadihiisii waa jiraan mudane guddoomiye marka waxaan ka rabnaa Hirshabeelle dhibaatooyinka ugu badan oo bulshadan isku kharibayo oo aad aragtay dagaalada dhex maalin wada waxa yani okay aad ma santahay mudane guddoomiye waxaan rabnaa xagga garsoorka in ilgaar loo lahaado waxyaabaha kalifa in garsoorka liira asoo baan ha shaqeeyo inaad noo cadaysan ka rabnaa maadaama aad tahay sharci dejiye nabadwal Mukhtaar laba su'aal oo weydiiyey oo ah Buuliburto iyo gabdhaha yaa leh gabdhaha saas u yiri runtii Buuliburto waxay ka mid tahay degmooyinka Hirshabeelle ama gobolka Hiiraan hore ayaan uga hadlay Hirshabeelle waxay yeelan doontaa degmooyin cusub iyo gobollo cusub degmooyinkaas iyo gobollada cusubna markii sharciga ay xukuumadda soo dhamaystirtay baarlamaanka ayaa la keenayaa baarlamaanka ayaa ansixin doona marka waxaan isleeyahay gobolnimada Buuliburto cidna ma diidana laakiin waa sharcigaas ay u baahan tahay in la soo marsiiyo tan gabdhaha hore ayaan uga hadlay laakiin qaybsigooda hadda hal gobol ama hal beel gaar uma aha waxa ay ka dhexeeyaan Hirshabeelle waa xildhibaan Hirshabeelle kusoo biiri doona markaasna qaabkii loo qaybsadana ayay ku xiran tahay insha Allah taala kullaba 17 qofood dadku ma qaybsanaan laakiin intii markaasi loo garta ama xaq u leh ayaa heli doonta Maxamed Cismaan su'aasha uu weydiiyey oo ah guddiyada madax bannaan waa sax Hirshabeelle waxay leedahay 7 guddi oo madax bannaan guddiga adeeg garsoorka ayaa ka mid ah annaga waxaan nimid iyo aan garsoor yani qoman oo meeshan ka jirin markaan aragnay cadaalad darrada iyo dhibaatada meesha ka jirta baarlamaanka Hirshabeelle wuxuu laalay dhammaan maxay ahayd wixii garsoor ka jiray garsoorkaas dad waxaa ka mid ah aan u qalmin garsoornimo dad waxaa iska qabsaday xarumihii yani dowladda ama yani garsoorka dhahaaya wax baan maamulayna dhahaaya ayaa ka mid ah marka dadkii waxaa jira dad fara badan oo tacdiib badan lagu sameeyey kadib waxaan go'aansanay inaan baarlamaan inta u yeerin wasiirkii cadaaladda ee waqtigaas joogay aan idhaahdo wax shaqayn kara ma jiraan waa laalnay waxaa la sameeyey yani garsoor ku meel gaar macnaha garsoorayaasha waxaa saxa marka hore in guddi adeeg garsoor inta la sameeyo guddigaasi 9 xubnood ama ka koobnaada ama ka badan kadib ay soo dhisaan muxuu ahay garsoorayaashaas marka yani madaxweynaha oo dekreed ku soo saara ayaa saxa marka maadaama aan guddi adeeg garsoor uusan jirin hadda waqtiga uu degdeg noqday waxaan isla garanay in la sameeyo garsoor ku meel gaar imtixaanaad ayaa waxaa lagu qaaday Jowhar degmooyinka ciddii ka timid iyo ciddii markaas gobolka joogtaba yani waxaa loo sameeyey garsoor muxuu ahaay degdeg ayaa loo sameeyey qofka inuu shaqeyn asagay ku xiran tahay laakiin annaga waajibka naga saaran wuxuu ahay in garsoor la helo gobolka Hiiraan wasiirka hoggaankiisa iyo guddi kale waxay ii sheegeen habeen dhaweeyay mar aan wasiirka la kulmay inuu halkaani ay imtixaanaad qaadeen oo garsoorkii naftiisa gobolka Hiiraan yani process degdeg uu ku jira intaas ayuu ii sheegay waxaan uu raali ka nahay in ay Hirshabeelle hesha garsoor cadaalad runtii
waa tiirka saddexaad ee dowladnimo waana dhiirigelinaynaa insha allah inay xuquuqdooda helaan waxyaabaha yani oo la tabanayana waxaan geyn doonaa insha allahu baarlamaanka ayaan horgeyn doonaa insha allahu tacaala waana ku mahadsan tahay in garsoor ka hadasho runtii waa aad wax muhiim u ah oo annaga lafteena noo ah dhiirigelin cabdi muxuu ahaay cabdi muumin cilmi wuxuu ka hadlay degmooyinka hiiraan muxuu ka hadlay degmada Matabaan iyo tusaale soo qaatay iyo maxaas xildhibaanada horta ma aha inaad aad u fahamtaan jeclaan lahay xildhibaanada hadda la keenay waa la soo xulay hab beelada ayaa lagu soo xulay reehbel maxay leeyihiin intaas reehbel maxay leeyihiin intaas reehbel maxay leeyihiin intaas lagu keenay laguma keenin degma hebla maxay leedahay meeqay u qalantaa imsa kursi macnaha xisbi meesh kama jiraan waxaad ogtihiin baarlamaanka qaranka Soomaaliya habeelad ku dhisan waxaa laga yaabaa dadka si ay u yani waa tii dheer waagi carta waxaan muxuu ahay xal waay xaq ma ah siyaabo badan dadka ay ku qanacsaneen inay xildhibaan u kala leeyihiin ayaa laga yaabaa Hirshabelle marka jawhara la isugu tagay habeelad ayaa wax lagu qaybsaday reehbel intaas anigu intaa nooma qalanta anigu intaa ma qaadan karo isjiid fara badan noocaas la sameeyay lama dhihin degma maxaas imsa xildhibaana ka soo gashay imsa u qalantaa imsa kursiya la dhigay lama dhihin Matabaan imsa kursi cidna ma dhihin hiiraan macnaha beledweyne degmada meeqa cidna ma dhihin waxa la reehbel meeqa ay leeyihiin taas yani meesha waxaan ku joognaa reehbel axzaab iyo muxuu ahaay iyo hab yani cod bixintii shacabka weli lama gaarin runtii taas halkaas ayaan idin leeyahay waan ku mahadsan tahay taas in la gaari doono waa rajayn doonaa yani waqtiga soo socda Faisal wuxuu weydiiyay xiritaanka iyo furitaanka baarlamaanka waa ka jawaab horeyaan u jawaabay taas baarlamaanka wuxuu furnaadaa maxay ahayd 4 bilood kadibna macnaha waa la xiraa hadiisan ay arrin degdeg u sanimaan oo aan baarlamaanka mashruuc ama yani sharciyeedya ama go'aano kale oo aan laga maarmi karin baarlamaanka daysan oo isku afgaran oo dib aan loogu dhigin furitaankiisa baarlamaanka 4 bilood inuu xirma ayaa dastuuriya 2 bilood fasax u qaata waa sax xiritaankiisii khilaaf uu ka yimid laakiin hadda khilaafkaas inta badan saan hore u sheegay wuu xalismay mas'aladaasna waa mas'alo qaanuuni ma aha hadda mas'alo oo ra'yi ma waa mas'alo dastuuri ah marka waxay ka dhiman waxa loo xalin doonaa qaab dastuuri ayaa loo xalin doonaa mas'aladaas dastuurka hadda uu weydiin dastuurkan waa ku meel gaar erga ayaa ansixisay waxaa ku qoran dastuurka Hirshabelle inuu ku meel gaar yahay wuxuuna sharci noqon doonaa oo dhamaystirmi doonaa markii shacabka afti ay u qaadaan ayaa dastuur yani oo rasmi ah buuxa uu noqon doonaa hadda laakiin waa dastuur ku meel gaar kan qaranka waa ku meel gaar su'aasha kale waxay ahayd oo i weydiiyay inuu isaga jeclahay qofkii hadda ku xadgudbo kale ama xiritaanka ama furitaanka baarlamaanka ama noocaas oo kale yani ma faraha laga qaada soo ay maxsay noqonaysaa maya dastuurka ayaa wuxuu qorayaa qofka dastuurka ku xadgudba ama yani si yani ku tagrifala يعني إنه محوها إنه تلاعب لقاعدة دستور Hirshabelle وحيل جواي وحاله هذين الدستور كقرنك مركب حنس لي هاي مسائل شقار كده دوينديس إنه هو دستوري وحيبقى أنت قانوني وحيبقى مسألة قانون مركب قانون عن الله محوها لو وجه أما لو مال مريا أي رنتي كابون تاي تكلم هذا وقتان ذلك الأمان جودان Soomaaliya وديبوشيسين أيو كجرا رنتي wax badan ayaa xirin iyo u baahan iyo dib u heshiisiin waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo in wixii su'aalaad iyo runtii waxaan ka jawaabina waa ka jawaabin in runtii oo aad fiiro nabeen waa in gobolkan waajiba maalmahan waa qodobo kale waa la oran karaa waa kala jira ilaahay su'aalaha hadda waxaa in gobolka Hiiraan iyo baahidiisa inay ogaado muxuu ahaay maadaama aan halkaa loo doorto aad u imaan gobolka hadda waxaan yani go'aansaday halkaas ka imaado baahida gobolka iyo waxa uu qaba iyo xabashada shacabka ku jirta inuu wax ka ogaado aan horjeeyo baarlamaanka iyo xukuumadda Hirshabelle runtii walaacaad fadlan ku gaarsiiyo gobolkan yani in laga sameeyo in lagu qanciyo maxay ahayd waxyaabaha ay cabanayaan in laga qanciyo ayaan halkaa u imid waana dareemi kartiin ani mar haddaan imid inay runtii wax badan qabsoomi doonaa ilaahay hadduu yiraahdo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan baarlamaanka iyo guddiga ku-xigeenada
inteena runtii waxaan ka midaysanahay hirshabeelle horumarinteeda iyo isku haya ayaan ka midaysanahay runtii aada umahadsantihiin madasha hiil oo runtii soo qabanqaabisay maxay ahayd muxuu ahaay doodan soo qabanqaabisay ka dhisan muxuu ahaay gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne aad aan u faraxsanahay runtii waxaan rabaa inaan muxuu ahaay mahad celiyo dadkii kasoo qayb galay oo magac kasta meesha ku joogo sidoo kale saxaafadda muxuu ahaay hiiraan idin aad aan u mahadcelinahay runtii siday bulshada shaqada ay u hayaan waxaan kaloo ku faraxsanahay inay su-aalaad i weydiisaan waxaan diyaar u ahay ama jimco kasta ha noqoto intaan joogo ama maalin kasta ha noqoto inaad muxuu ahay xaflada ama doodwadaha taranka aad qabataan runtii ood ra'yigeeda kusoo bandhigtaan oo cid kastoo ka cawinaysay iyo wax kastoo ka taaganayo aad weydiisaan runtii aad iyo aadan muxuu ahay waxaan diyaar u ahay meel kasta dunida kaasaan muxuu ahay mar labaad kaasaan markaa su-aalaha ku weydiiseen haddii maanta idinku qancin waayo waxaa laga yaabaa maalin kale inaad idinku qanciyo muxuu ahaay aad tidhaahdaan waa guddoomiyaha wax fiican ayuu noo sheegay ama aan ugu qanacnay waxaana idinku doonaya in kulamadeena sii bataan adinkana inaad ka shaqaysaan midnimada iyo nabadgelyada iyo isla wadajirka reer hiiraan inaad ka shaqaysiin adinkana waa idinku boorinaya oo aad gacmaha isqabsataan oo khilaafaadka iska ilaalisaan runtii kadibna waxaad heli karteen xuquuqda inaad hirshabelle ku leedihiin haddaad isku duubnaataan oo adinka isku dhinac u jeesataan runtii gobolkan yacni waxaad aad cabashada sheeganaysaan waad heli kartaan laakiin waxaad ogaataan maanta dalka soomaaliya inuu u gudbay federalism oo isteedya yacni qof walba xaqiisa uu kuraasanayo state hadda gobolka hiiraan ama gobolka shabeellaha dhexe ama gobolka galmudug oo kale gobol gaar u taagan ma jiro dalka wuxuu u gudbay federalism marka waxaan rabaa federalism baad idinka faa'iidaysataan oo reer hiiraan xaqa ka maqan ay ku raastaan stateka gudihiisa ay ku xisaabtamaan annana waxaan diyaar u nahay inaan idin garab istaagno waxa loo xuquuq oo idinka maqan hirshabeelle anagaa madax waa wax dhibaato oo halkaasi ka jira ma jiraan waxaan idinka codsanaha shakiga inaad iska dhaaftaan hiiraan waa la duulay hiiraan waa dhibaatay waxaas inaad iska dhaafteen aad horumarka hiiraan iyo hirshabelle ka shaqayseen waa idinku boorinayaa madasha aad iyo aad ugu mahadcelinaya kasoo qaybgalayaasha waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu